barnaamijka kaga barateen martida fanaanka caawa waxaa inoogu markaa fanaanada weyn ee Zainab Maxamed Xaaji Zainab Lamadagax inoogu timid booqasho magaalada Oslo iyadoo safar dheer inooga timid dalka Canada si ay ula qayb qaadato sanadka cusub walaalaha Soomaaliyeed ee reer Oslo. Zainab ku soo dhawaasho shabakada calanka waa dhawaan midna aad ma san tahay waxay la tahay safarkaadii inuu yahay markii ugu horeysay aad timaado magaalada Oslo. may Oslo waa imitaan ka hor waxaa imid sanadkii 2009 maxaa kala kulantay markaa Oslo? waxaa kala kulmay soo dhaweyn iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo diyaar u ah dalkayga inta dheer kala socdeen masaajida iyo reediyaasha inay ila qaataan waan iyaga codsi dadweynaha waxaan jeclaystay inaan ku weydiiyo Zainab goormaad ku soo biirtay fanka? heestii kugu horeysay ee aad qaaday ma xasuustaa? waxaan qaaday hees la dhihi jiray jacayl oo heeska ugu horeeyo aniga aan qaado waxaana sanadkaas qaaday markaa waa timid magaalada Oslo safar dheerna waa soo gashay sidee baa u aragtay sawir noocee kaaga muuqda? لا أيضا مجال أصله ما كي ولا ما عليك تنسى تريدي دكتور عليه وكل رأينا جعلنا لكن حتى سومالي ملك السعودة في كمان هم لينا يا سومالي بدل ميسون تكلا هسها أفرادي هسبا أوجع عشان كلنا البنا لا يسني قبل ما وجعنا هاي لكن حنجعلنا هاي وحير كان لو دعوا هذا الريان وسمي الأبوان محمد إسماعيل بيلك محمد السلام استقال إسماعيل السلام هستا داوديال بدن التاجر شاء كداونا يبال مريه وحير إنه لا تعبان لا ينشأ أني كل من قبل أفضل ما شاء الله. Zainab فنانين كعصب هيسها هذا. شو شاينا دقيسته هيسهول. والله فنانين كعصب بدينين فنانين كأرجعنا إلى عصور دقيسته حاكم الأثنين قالب وحاكم تقييد إسكا وحاكم المعذرين وحاكم الأجرام عرالي وحاكم العدبولة وحاكم الجوكلة. dad badan waa badan yihiin marka mid way inaga qawaysay dhamaantood waa wada jeceshay fanka marka ku soo diireysay fanaankee baa jeclaad inaad heesiisa badan yihiin walaa isbaraaniin Soomaali ma kala dhacay Soomaali aad u jeclaa maxaa kugu dhaliyay inaad masrax soo fuusho ee aad heesiso wallahi ilaa markaa yaraan waa waxaan ahaa dadka cibaadada u waxaayo heesaha jecel meelaha hooyada jecel iskuulka xataa ku fiicnaa suugaanta waa iska jeclaa maalin ay iskaga kasoo dhalatay inaan iska heeso professional markaan Canada tagay maxaa kala kulantay markii ugu horeysay ee aad haysto ma ku fududaatay marka hore ka heystay mise way kugu adkaatay? way fududaatay dabcan Zainab heesahaaga waxaa jirto hees ka mid ah taageerayaashaada aad u jecel yihiin waa aniga xisaakin u tahay dadka aad u dhegeysta caawana ay shabakada calanka ay soo diyaarsatay dad badanna ay jecel yihiin heestaas oo lagu magacaabo karo heesta ereyada qofka iskale sameeyey
iyo adigoo xaalaa inaan mar labaad loo dhaqayso heestaas waxaa iskale Allah u naxariisto hawaan weyn oo Soomaaliyeed fanka qayb weyn ka soo qaatay magaciisa waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Cawaad heeska markii aan dhammeynay oo videogeeda aan dhammeynay ayuu dhintay Allah u naxariisto hees qiimo waaye dadka dhanna way ka hadlaan heeskaas runtii annagu waan jeclahay sida idinku jeceshiina waan jeclahay heesta muusigeedana waa different dadkana ciyaarta iyo waxa dhalinyartii aad ay u jeclaadeen marka waxay ka bilaabataa qalbigii jeceshaa ila loo khushuuca nafta laga qabtaayo shacabka waxaa uga tagayaa waxaan leeyahay masaarak حسلة إن شاء الله هذه صدر كود بشر وحال ثلاثة الله يعيك صلاة وعن وأنتبه كذا شرفت رئيس وزير وحال ثلاثة الله شبكات علمك وتحسيني حال الله يدرك كذا ماشي كسر وضع يكس وأنا أركي ويب سايت ذا أركي سيدا فلاني تسود ويسي ويب سايت ذا كتير أو كتير وربحين فيفك سأو في بيسين وكم هالسنتين وحال الله شبكات علمك ماشي كسر ولا مشي يعني ودي حمر بالسميرة كجلوة أنا حطينا حمر شتر حريري حريري قلبك يتعشى إلا المشروع نفط الله وقتها يوم لو بورن هذه ماذا قلبك يتعشى إلا المشروع نفط الله وقتها يوم لو بورن هذه ماذا أرسكو لقرشينين أدير هاي
sheeka